الله الرحمن الرحيم. دلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا أنا جاي أغيرني. waxaan rabnaa inaan ka siino warbixin xaaladda dagaalada si aad la socotaan caadana u ahayd dhaqanna u ahayd maamulka Somaliland waa saaka shantii iyo barso waxaa soo weeraray deegaankay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Qarab waxaa ka soo weerareen saddex caag oo kala duwan ka soo weerareen saddexda caag oo ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelihii ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhirwaaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxaa halkaa ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo kuwo gacanta looga haya intaba dagaalka saaka dhacay taasuu ahaa waxaa kale oo saaka aroortii lagu sameeyey ama loo geystay shacabka degmada Laascaano dhibaato aad u ballaaran waxaa laga soo kaxeeyey ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa halkaasoo loo keenay magaalada Laascaano shacabkeeda inuu gumaado isla markaana lagu caawiyo shacabka waxay u sheegaysaa Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas Soomaaliyeed iyo Puntlandarka ah ee meeshaas lagu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaatada loo geysto ay mas'uul ka tahay Somaliland hadday noqoto shacab la laayo hadday noqoto kuwa la xirxiro iyo kuwa had yartaa baad maqlaysay maxadadaada iyo loo marinayay muxuu ahaa xagga juulinta loo marinayay niman weliba sheeganaya mas-uuliyiin oo laga soo diray hargeysa arigaa Puntland way ka xun tahay waxayna kaloo la tiiraysan tahay lana wadaagaysaa shacabka reer Soob dhibka ay ku jiraan dagaalkaas had yartan hakadiyada ayuu galay Puntland waxay u sheegaysaa shacabkeeda ummadda Soomaaliyeed iyo cid kastoo ummadda Soomaaliyeed doonaysaba inaysan duulaan ahayn isla markaana dalkeeda dadka ay difaacayso aad baa maasantihiin مزرعة يوم سوانتها maasantihiin